Assalaamu calaykum walaalayaal kusoo dhawaada hooyo and me channel. Waxaan idinku codsanaynaa subscribe, like, share, comment. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta nadaafadan ku soconaynaa, deep cleaning aan sameynaynaa. Daaqadahan ka bilaabaynaa because guriga daaqadaha in la dhaqo waa muhiim. Fresh air iyo nadaafada way u fiican tahay. Kadib alaabada dhan aan soo jiidaynaa, hoostooda nadiifinaynaa, waa hufagaraynaa, waan dhaqaynaa. Kadib alaabtii haddana Febreze ku dhaqaynaa, ku nadiifinaynaa. Kabadka Tramiski ayaan haddana markaan dhaqa ka bacdi ku hufagaraynaa. Daahiyada in la iska dhaqo weeyaan oo la iska bedelo la nadiifiyo. Barkimooyinka fadhiga yaalaan iyo saliyaasha kabadka waxa dhan waxaa fiican in la iska wada dhaqo. maasha allah guriga waan iska nadiifinaa hadda waxaan diyaarsanaynaa sambuus 2 maalin oo chicken iyo hilib ah. hilib shishiidkii hadda sameynaynaa sambuuska aan ku samaysan lahayn. hilib shishiidkii ma soo laabanay wuu noo soo kala bubaxay si fiican. hadda waxaan ku daraynaa spiceski. hadda waxaan ku darayaa cusbadii iyo spiceski, xawaajiyaashii. hilibkii si fiican noogu soo qalalay, wuu noo soo shiilmay isagii spiceski, cusbadii, filfishii wixii dhan. hadda waxaan ku shubayaa basal, toon, liin dhanaan, kabsar caleen, basbaas waan isku soo wada shiiday. intaas hadda gudaha uga karinaa ku carfinayaa. waan ku daboolina hadda isku soo shiilmaan intaas. hilibkii wuu noo soo shiilmay, wuu soo qalaysmay. hadda waan ku daminaynaa hilibkii inuu qaleel yahay fiican. halka waxaan ku haysanaa basal dhowr nooc aan si yaryar usoo jarnay oo sambuuska ku hagaajisan rabno iyo liin dhanaan. hilib shishiidkii hadda uu noo soo qaboobay, waa diyaar. basashan ku daraynaa. basashii hadda ku darnay iyo liin dhanaantii markaa waa isku soo qasaynaa. hilibkii sambuuska meeshaas diyaar noogu yahay. fooliyadana xaggay diyaar noogu tahay. sambuuskii aan diyaarsanaynaa. halka waxaa igu jira bur aan biyo kusoo qasay. geesaha in xoog loo xiro wayaan, haddii kale saliiddaa gelaysaa. digaaga shiilnaa oo sambuuska ka samaysanayna uu noo soo shiilmay, uu soo qalalay isagii spiceyaashii. waxaan ku daray filfil, cusbo iyo xawaajiyaal si fiican iskugu soo qalaleen. muhiimadda waxaa inuu isku dhedheganayn. hadda waxaan ku daraynaa waa kabsar caleen, basbaas, toon, basal aan isku soo shiiday iyo liin dhanaan. intaan markaa gudaha si fiican ha uga shiilmado. ku shiilina wax yar.
chickenkii uu noo soo shiilmay, basashii iyo toontii iyo kabsar caleenta ku baaba'een iyo basbaaskii liin dhanaantii. Marka hadda uu noo soo qalalay waan ku daminaynaa, wax yar markuu qabowaan basasha ku daraynaa. Chickenkii shiidnaa oo sambuuska ka samaysan rabnay meeshaasuu diyaar noogu yahay, uu qaboobo. Hadda basashaan ku daraynaa. Basashii aan ku darnay hadda waan isku soo labaynaa, isku soo mix garaynaynaa. Chickenkii sambuuska xaggu diyaar noogu yahay. Sambuuskaan hadda diyaarinaynaa. Waxaan waa bur iyo biyo aan isku soo qasay. Burka inuu adkaado ma fiicno because sambuuska culays ka dhigaya. Geesaha si fiican inaa u ilaalisid waa saliid. Sambuus hadduu yeesho ma fiicno. saasaan kusoo wada dhammaynaynaa. Sambuuska xaggu diyaar noogu yahay, chickenkii iyo hilibkaba. Marka baxaan ku duduubaya 2 maalin kala karinayaa. Firinjeerka meesha koraan saaraya. Sambuuska haafkii aan firinjeerka gelinayna meeshaas diyaar noogu yahay. Burkii xaggu diyaar noogu yahay 2 xabadood 2 maalin kala sameynaa insha Allah billahi karim. Firinjeerka meesha koraan gelinaya.